qolooyinka weli sii adkaysanaya ee isla berriyaad isdhiibi doontaa maalin aan la aqbali doonin inaad gaaraysaa isdhiibista meel fog inay jirtana uma malaynaayo guushu way dhowda meel fog ayaa laga soo bilaabay wadda dheer ayaa la soo maray maantana meelaa la soo gaarsiiyey waxaan rabnaa marka inaysan nugu sii dheeraan mar haddayna hor taallo oo aanan kaanan hurayn mar hadday daadinayaan habeen iyo maalin dhiiggii ummadda soomaaliyeed mar hadday ku ciyaareen sharafkii iyo cisigii ay dadkaanu lahaayeen mar hadday hor taagan yihiin noloshii iyo horumarkii ummaddaanu ay heli lahaayeen hadday hor taagan yihiin xoogaysigii iyo awoodaysigii dawladnimada soomaaliyeed waxa noo furan oo kaliyuhu waa inaan gacanteenna uga dulqaadna kana dhammayna sidaasoo kale waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro nimankaa argagixisada qolooyinka ay qaldeen ee hawdka ku jira ee habeen iyo maalin ay dhibaatadu ku dhacayso waxaan leeyahay igana dabcan ma jirto wadda idiin furan oo kale oo aan ka ahayn inaad isu dhiibtaan ciidamada qaranka inaad isku dhiibtaan gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qof walba meesha ugu dhow ee xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan yahay inay isu soo dhiibto haddaysan taasu dhicin waxa waaye laba un baa taalla ama dhimo ama isdhiib wax kale miyaa u furan dhalinyaro wax kale miyaa u furan wax kale miyaa u furan wax kale u furan uma jiraan labadaa un baa u furan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo qolooyinka weli sii adkaysanaya ee isla berriyaad isdhiibi doontaa maalin aan la aqbali doonin inaad gaaraysaa isdhiibista meel fog inay jirtana uma malaynaayo aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa guud ahaan howlaha aad ku jirteen aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mar kale inaan saaka halkan idinkugu imaado sharaf iyo karaamo ayaad leedihiin waxaan idin leenahay ilaahay ha idin xafido Soomaaliya 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 xoogga dalka cadowga Soomaaliyeed cadowga Soomaaliyeed cadowga Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin guuleys